ما waxaan ku keenay waxay ahayd Sheekh Saciid markii uu gabadha lahaa ayuu Sheekh Xambali yiri gabadha wuxuu ka wadaa yani xaaska waay garanaysa marka meeshii aan ku soo xasuustay hadda ka hor anoo masaajid ku tukanaya yani aan saaxiib nahay oo wadaad ah oo Cabdiraxmaan Shangaani la yiraahdo ayaan maaragtay inay yarba ila socotay aan dhalay lantii oo marka waxaan u soo iibiyay waxay u tiri waxaan rabaa soo iibsatay kadib hadhow Cabdiraxmaan baa intuu iyimi uu yiri Mahdi adiga gabadhaada baari waay marka waxaan ku yiri gabadheeda xageed ku aniga marka waxay ka dhaadhacsan inay xaaskay ka hadlay marka waxaan ku yiri gabadheeda xageed ku aragtay markaas wallahi billahi baari waay soo arkay baari waay gabadha aniga waxaan aqsan waxaan leeyahay sheekh waxaan ku weydiiyay gabadheeda xageed ku soo aragtay marka ninkan anoo yimo lagu yiri sheekh ninkan wuxuu ka hadlay inantaada yar buu ka hadlay markaas aan ku risaas ma tiraahdiya markaasoo inantii yareed buu intuu u tagay ayuu nacnac weydiistay markaas kulli waxay haysay oo dhan bay u dhiibtay marka wuxuu ku yiri saas ka wada marka ma kula gabadhaada baari waay marka Soomaalidu isku yara wareersan yihiin oo maaragtay wala sira haysta ayo lix waxaan ku yara darsanaya insha Allah taala maadaama in dhalinyaro badan ay meesha joogaan inta badan ay dhalinyaro u badan yihiin waxaan ku sii darsanayaa kulli hadhow ma hadli doonaa waxaan ku darsanayaa in Ilaahay laga cabsado qofku meel kasta uu joogo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsado taqillaaha haythu ma kunt ayuu xadiiskii Nabi sallallahu alayhi wasallam meel kasta aad joogto Ilaahay ka cabsado Soomaaliya hadda ka imi iyo wal cusubahay iyo adduunka iyo cusub iyo ma garanaysaa nalalkiiba ay wareeriyay iyo wax noocaas ah leeyahay Ilaahay laga cabsado yar iyo weynba Ilaahay laga cabsado ogowna idinku hadda tusaalatiin dadkiina ugu horeeya ee magaaladan hadda soo galay tusaala u tihiin dadka idinka dambeyn doona hadii idinku dad isku xiran oo wanaagsan oo dhalinyaradooda waxbarashada kula dadaala oo waalidiin is haysata oo is jecel oo isla jooga aad noqotaan dadka soo socda waxa u noqonaysan tusaala u noqonaysan dhalinyaraduna sidoo kale dhalinyarada ka dambaysa waxay u noqon doonaan tusaale hadii dad wax barta waalidkood iyo diintooda iyo dadkooda anfacay soo baxaan waxay faa'iido ku jiraan waxa la oran doonaa hadhow dhalinyaradii ugu soo horeysay magaaladan ayaa ma sha Allah waxay ahaayeen dhalinyaro fiican dhalinyaro wax bartay hebel baa ku jira oo heblaaya ku jirto oo hebel baa ku jira laakiin hadii ay dadku noqdaan dad magaalada iska gala oo iska baashaala oo waxba aan haynin waxa way iyaguna naftoodana may anficin dadkoodina may anficin waddankan ay joogaan waxa ka may anficin marka dhalinyaro inta tihiin ayuha al-ikhwa wal-akhawaat adaraya dhalinyaradiina badan ee meesha fadhida dugsiga hala yimaado salaadaha hala tukado waalidka hala maqlo masaajidda hala ku xidhnaado hadda idinku fiicantii baan waa yaabanahay hadda waxa way dhalinyaro fara badan oo hadda iyo shalayba waxaan arkay wiilal yar yar oo aad u yar oo maaragtay af Soomaaliga dhageysanay maanta saacad oo xadareen way fadhiyaan ma sha Allah waxa gabdhaha waxa la ma sha Allah waraada dadku miyaanay dhalinyaro ahayn baan leeyahay maanta maayo anigu taqriiban 20 sano wadanka jooga waxaan ogahay waxa way dhalinyarada yar yar hadda aanu baranay hadaan ama Danish kula hadlin ama English ama wax kale aanad kula hadlin markiiba 5 daqiiqo kadib waa hurdaaba marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin barakeeyo wax lagu farxo weeye Soomaaligana hal ilaaliyo qadda hooyo hal ilaaliyo idinkuna isku xidhnaada dhalinyaronimadiina laga faa'iido oo diinta Ilaahay haloo shaqeeyo hadii aad diinta Ilaahay u shaqeyn weydo oo masaajidka ku xidhnaa weydo oo culimada la shaqeyn weydaan shaytaan baa idinku shaqeysan doona kaas hadda adigoo meelaha madax xiran oo kala jeeda lagu arki doono sida awadeed inta lagu xidhnaado waalidkana hal maqlo intaas ay ga talaayo jazaakum Allah khayran salaam alaykum